madaxweynaha shirkadda Amazon Jeff Bezos ayaa waxa uu kasoo ag muuqday markii ugu horeysay saaxiibtiisa cusub oo ah gabadha wariye ah ee la yiraahdo Lurian Sanchez kadib markii ay kala tageen si kama dambeys ah xaaskiisii hore waxaa lamaanaha lagu dhex arkay iyagoo isla socda oo daawanaya finalka tenniska ee Wimbledon waxaa xusid mudan in Sanchez oo 49 sano jir ah ay dhawaan kala tageen ninkeeda oo kamid ah ragga sida weyn looga yaqaano Hollywoodka lana yiraahdo Patrick Witsela oo ay kala tageen xagaagii hore. Sanchez waxay leedahay 3 caruur ah oo 2 kamid ah ay Witsel u dhashay wiil kale oo nin kale uu ka dhalay. Lurian Sanchez iyo Jeff Bezos waxay isbareen ninkeedii hore waxaana jira sawir ay saddexdooda ku wada jiraan oo la qaaday sanadkii 2016 January 9 aan soo dhaafanay ayaa Jeff Bezos oo ah ninka ugu taajirsan adduunka ay kala tageen xaaskiisii hore Mackenzie kadib markii ay isqabeen muddo 15 sano ah iyadoo furiinkaasi uu noqday kii ugu qaalisanaa ibada maadaama Mackenzie uu ka dhigay gabadha saddexaad ee ugu taajirsan adduunka halka Bezos uu weli yahay ninka ugu taajirsan adduunka. Maxamed Said Cabdullaahi.